السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قيمة قدرنتي كم بدنا كل أنا برت عن كل يوتيوب كشيء ما فلو رسالة أما شيء مش شرف سكر وكوسب حيساي ولا هي قيمها أي قدرنتي كم بدنا شيء ما وحاجة برتين مرول بين يدي سوق بسوق قرح بدنا يكسر رصيدنا الدافع هذا وأنا تعلم مرول بقى ملك استشوكتي بين إذا لو ذاك قصين عجيبك إن شاء الله ولا هي قيمها قدرنتي كم بدنا ده رأي اللي تشوكتين وكم سنتي اللي تشوكستين وقرح بدنا هدا يقعد سبتين واحد اللي ويلكم قاع مفرن قلب فرن يوش فرن بكسر هذا قاع مفرن وحالي الباب فرن لما قال يوجد فرن يا القلام ولا هي لونا لايك تشير سبسكرايب كومنتي قروح بدنا هي لونا ان شاء الله شيء مو محيل تعاون اذا لو ذاكتو شيء مو عاو حرب ثاني اذا لو ذاكتو ما شاء الله تبارك الله 10 حيوانات مباشرين في الجنة 10 حيوانات مباشرين في الجنة طبعا حيوان ويوا دنيا كود كده سارن دنيا دشو سارن jannada loogu bishaareeyay in ay geli doonaan kula noolaan doonaan talo maxay yihiin 10 xayawaan ee loogu bishaareeyay jannada in ay geli doonaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in 10 xayawaan oo loogu bishaareeyay jannada in ay ku noolaan doonaan ay caaw rabtaa shaymo in ay idin la wadaagto 10 xayawaan maxay kala yihiin la socod wanaagsan حيوانك كوباد وبريقدي قادي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بريقدي قادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هبينكي لديلمي جندا ايا لوغ بشاري حيوانك لباد وهشي النبي صالح عليه السلام ناقة صالح عليه السلام حيوانك saddexaad waa hudhudkii nabi Suleymaan u soo warrami jiray ee risaalada uu qaadi jiray calayhi salaam hudhudkii nabi Suleymaan calayhi salaam waa xayawaanka saddexaad xayawaanka afraad muxuu noqon doonaa waa dameerkii uu watay Usayr marna asxaab ayaa lagu tilmaamaa marna nabi ayaa lagu tilmaamaa ilaahay subhanahu wa ta'ala yaasi inaga og wuxuu u yahay كل قف شرف بدن أيها دميركي وتي عسير وعفر ورانجد النبي سليمان الله هذا الشيء عليه السلام يكتري وكتشوغا سليمان يعيدن كيسو يسن إذن كدر درننا كدبنا النبي سليمان عيدن كيسي كاستاتشي ونقول بني ورانجد إن أي وداد أيضا مرتو عليه السلام هذا وحن إذن شيغي بريقدي نبي محمد عليه السلام هش النبي الصالح هدوتك النبي سليمان القرآن تداس يضميركي شنبان دين شاغن رواقي لحظ لي نبي الله يعقوب عليه السلام مركي ويلكيسي نبي الله يوسف ولا الذي سعيلك كتورين أي كدهن عابي ولكن يوسف وحا عني روايو أما دياب عني بيدهن دياب وبالعربي هانسان شعل هاي أيا عني asaga oo wiilkiisa raadinaya ruwaayada ruwaa kamid ayaa la hadlay oo ku yiraahdo anagu ma cunno hilibka nabiyada hadii aanu ruwaayanahay ruwaagi la hadlay nabi yaqoob alayhi salaam ee ku yiri ma cunno hilibka nabiyada waa lix dibigi uu u loogay malaa'ikta nabi luut alayhi salaam malaa'ikta dibigi u loogay marka idin leeyahay watay laba malak u yimaadeen nabi luut qomkiis watay qom luut ahaayeen qomkii oo ilaahay sida daran u haligay laba malak oo niman iska soo dhigay watay u yimaadeen labadaas ayagoo bini aadan ahaan ah ay u yimaadeen markaas ay wuxuu u qalay dibiga uu loogay nabi luut malaa'ikta 7 maxaa haray 3 ayaa haray saddexdaasna waxay kala yihiin xuudkii liqay ee soo labi celiyay nabiyullaahi yuunus calayhi salaam xuudkii liqay ee soo labi celiyay nabiyullaahi yuunus calayhi salaam waa imisa huwa 8 dad badan oo inaga mid ah way yaqaanaan xayawaanaadkan lagu bishaareeyay jannada dad badan oo inaga midina ما يقانان حيواناتك جنة لوجو بشارية دد بدن oo aan ka warqabin oo ogeyn ayaa jira
sababtana dabcan dadaan maqlin baa jiro baa ku dhahay baanaan maqlin mumkin ma garanayo sababta waxa ay tahay hadda waxaynu maraynay 8 waxaa kale oo jiray wankii lagu furtay nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam wankii lagu furtay nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam markii aabihii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u nadray in uu wiilkiisa qali doono oo brain doono kadibna isagoo oo wiilkiisii saaran yahay birtii dusheeda saaranta ay kari weysay ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray wankaas oo wanka booskiisa geliyey kadibna bartii wankii lagu qalay halka xayawaan waxa weeye ayaan leenahay waa xayawaanka ugu dambeeyay ee 10aad 10 xayawaanaat mubashiriin fi janna xayawaanka ugu dambeeyay maxaa weeye waa aygii asxaabul kahf aygii ay wateen weeyaan kan ugu dambeeya asxaabteeda qiimaha ay qadarinta iga mudan oo ku maasantii la joogistana quruxda badan maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago 10kii xayawaan ee jannada lagu bishaareeyay intaas ayana ku dhantahay waxaa idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subscribe naga ilaawina min fadlakum insha Allah bismillaahi kariim